Putin xooga u sheegtay qaaradda Yurub oo dhan la dhihi karaa maadaama madaxda Yurub maanta ay sidaan u horfadhiyaan madaxweynaha Mareykanka iyagoo raba in looga ergeeyo Mr. Putin. saaxiib yaal soo dhawaada waxaan ahay Mr. Klimatani had iyo jeer waxaan ka hadalnaa barnaamijkeeni ahaa maxaa cusub maanta 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada waxaa aad looga hadalhayay shirka u socda madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump iyo madaxda Yurub shirkaas oo lagu soo gabagabeyn doono ama lagu soo afjari doono dagaalkii sanad jirsaday ilaa 3 sano iyo bar ee u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine. waxaa la socotaan in uu maalin dhaweyd ay kulmeen madaxweynaha Ruushka Putin iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. hase yeeshee xalay waxaa kulmay madaxweynaha Ukraine Zelensky ninkay dhahaan iyo madaxweynaha Trump waxaana laga wada hadlay sida loo soo afjari lahaa xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine. maalintii dhaweyd markuu la kulmayay Putin madaxweynaha Mareykanka Putin waxaa loo sheegay in uu dagaalkan Mareykanka uu soo afjari doono. Putin wuxuu ballan qaaday xilka inta isagu uu haysto Donald Trump inuusan wax weerar ku qaadi doonin Ukraine. madaxweynaha Donald Trump isaguna wuxuu ballan qaaday in uu wada hadalkan soo gabagabeyn doono Ukraine oo ku qasbi doono in ay nabad qaadato. shalay waxaa la isku wacay madaxdii Yurub oo dhan Jarmalka, Ukraine, Finland iyo NATO iyo kuwa kale oo qaaradda Yurub madax ka ah. sawirkan hadda u jeedaan ee background-ka u dambeeyo waa shirka ay kaga tashanayaan madaxda Yurub iyo madaxweynaha Mareykanka sida loo soo afjari lahaa xiisadda u dhaxaysa ama dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka. danta iyo ujeedku wuxuu yahay in la qasbo madaxweynaha Ukraine in lagu qasbo wada hadalka in uu galo. sidoo kale madaxweynaha Donald Trump page-kiisa Facebook wuxuu ku soo qoray in uu la kulmay madaxda qaaradda Yurub sidoo kale ay ka wada hadleen sida loo soo gabagabeyn lahaa dagaalkan labada dhinac u dhaxeeyo. wuxuuna ballan qaaday madaxweynaha Mareykanka in uu isku keeni doono usbuucyada soo socda in uu isku keeni doono madaxweynaha Ruushka iyo Ukraine wada hadal live-na ay warbaahinta ay tabin doonto. kulankaas oo noqon doona midka ugu xiisaha badan ee warbaahinta ay indhaha ku hayso iyo caalamka oo dhan. sidoo kale qaaradda Yurub madaxda ka talis waxay dalbadeen in damaanad la siiyo Ukraine inaan mar dambe la soo weerari doonin iyadana ay qaadan doonto wax kasta oo looga baahdo. ujeedka Ruushka uu dagaalka u galay waxay ahayd in uusan Ukraine aysan ka mid noqon NATO. sidoo kale ujeedka Ruushka dagaalka u galay waxay ahayd in aysan Ruushka gobollo ka tirsan ay qaadan Ukraine. hase yeeshee dagaalka natiijada asaga uu ka rabay ama goolka asaga uu ka rabay waa uu gaaray. Donald Trump wuxuu ballan qaaday in gobollo ka tirsan Ukraine uu siin doono Ruushka. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in aysan ka mid noqon doonin Ukraine madaxda NATO ama xafiisyada ugu sareeya ee NATO. almost waxay ka dhigan tahay in loo tixgeliyay Ruushka asaga wuxuu dagaalka u galay laakiin ninka khasaaraha qabo ama hal iyo eberadar waxaa waaya ninka ay dhahaan madaxweynaha Ukraine ee Zelensky. markii shirkan hadda u jeedaan uu ka dhacay Washington iyaga oo dhan oo madax oo qaaradda Yurub u taliyo waxay hoostageen Mareykanka waxay leeyihiin nagala hadal ninkan Putin la leeyahay anaga cabsi badan ka qabnaa mana la hadli karno. hadda Ukraine ay taagan tahay waxaanba cabsi u qabnaa in la soo weeraro Jarmalka iyo wadamada kale ee deriska la ah. marka iyagoo ergaa waxay dhaheen anaga iyo macal Ukraine ninkaas naga ergey waxa way amaamada saar waxa asaga uu raban waa u sameeynaa gobolada asaga uu raban waa siinayna maxaa la dhahay Ukraine NATO kama noqomayso adaa nooga wakiil ah arintaas soo dhameeyay. Trump asagana kulleeyay danihiisii waxa asaga uu xariifka qaaradda maadaama uu yahay wuxuu rabaa in uu dhaho dagaalkii waa soo gabagabeeyay. markii ugu horeysay doorashada uu galayna waxa la isku ogaay in uu soo gabagabeyn doono muddo 2 bilood gudahooda in uu dagaalka u dhaxeeya labada dal uu soo gabagabeyn doono. hase yeeshee 6 bilood asii mar weli ma soo gabagabeynin laakiin tan ay waxay noqon doontaa midii ugu horeysay uu dagaalka uu ku soo gabagabeyn doono taasoo Mareykanka u noqon doonta asagana
diblomaasiyaddii ugu fiicneyd maadaama uu natiijo weyn uu ka gaaray haddii uu xal waara laga gaaro. Laakiin si kasta waxaa dhaban ama dagaalkan khasaaro ku qaba dalka Ukraine, sababtoo ah malaayiin qof uu khasaartay, malaayiin intaasoo kun oo qof loogu dilo dagaalka. Haddana maanta natiijo sax ah ma aysan gaarin. Shalayna waxay dagaalka u galeen in ay ka mid noqdaan naatadii ay sheegeen kama aysan mid noqon. Shalay dagaalka waxay u galeen in Ukraine ama Ruushka ay ka madax bannaanadaan. Maanta kama aysan madax bannaan oo weli taagtaag ee gobolo ka tirsan Ukraine ayaa la leeyahay waa la siinaa ama waa lagu wareejinaa Putin xooga u sheegtay qaaradda Yurub oo dhan la dhihi karaa, maadaama madaxda Yurub maanta ay sidaan u horfadhiyaan madaxweynaha Maraykanka iyagoo raba in looga ergeeyo Mr. Putin. kolley kulamada soo socda ama madaxweynaha Ukraine iyo madaxweynaha Ruushka Putin haddii ay kulmaan, kaas ayaa wuxuu noqon doonaa kulankii ugu xasaasisanaa oo u dhexeeya madaxweynaha Maraykanka Mr. Donald J. Trump. qodobadaasaa ugu dambeeyey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddii aad video ka heshay fadlan like saasina share galay. waxaan ahay Mr. Kilmatani. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jaw jaw.